biri nin daarood uga hiilisid ayaga waxay dhahay annaga hooyinima ugu ciyaarnay nin daarood ugu hiiliye mafahmi ma rabaan ayaga kuma farxayiin runta marka laga hadlo laba maadaa kuu furo marka soomaalinimo ee tahay inaa iska dhaaftid laba qofood oo daarood iyo hooyi ku ciyaaraysa inaadan dhexdooda gelin anoo hani dad asxaabaana oo isku fiicannahay maanta waa ay ciyaari kartaa waa aaminsanahay laakiin markaan la ciyaaraayo mataqaanaa qabiil anoo qabiil kuma ciyaaro laakiin markasta qabiilay noqotaa daarood haddaad la ciyaartid hawii daarooda loo kala saftaa ma fahamti marka ana waxaan qabaa ka dhex bax iyaaba ku saameenba laba qofood oo ciyaaraysa waa iga talo bis adaa daarad jooskaaga adaa iskale waa samayn kartaa laakiin dhex baxa ku dhihi lahay ma ka bacda hadalkaani haa dadka hadda waxa kuu soo qoray oo waxa ku dhahay habeenkaas qabiila ugu ciyaarna lifekaaga ma ku jiraa mise ka baxeen fiiriba ma ku jiraan ku jirtaa gabar la dhahayo iyo hodan aad joogto okay waxa u sheegtaa sida hadday habeenkaas ani igu ciyaartay qabiilka ah haddii igu ciyaartay oo khaldan tahay hadda u sheeg hadday imaqlays anaa la hadlaayo intaa hadlaysoo ku dhegaysanay aan la hadlay weligay qof ii imo qabiil igu ciyaar ma dhihin adimo dalbanaan ku yiri waa kugu dal okay hani waa hadashay ani aan hadla marka qof inuu qabiil ani igu ciyaaro diyaar kama ihi diyaarnu uma noqonin caaba oo idin inaan qabiil ka wada hadalno wax ka soo baxay ma jiro aniga Soomaali Maxamed way ii siman tahay dadka oo dhan waa dadka walaalahay qofka aan dadka ugu jecelahay dadka aan ugu ixtiraam badanayna waxaa waaye waa qofka naftiisana ixtiraamaya nafteedana ixtiraamaya cid allaale ciddaa rabtadadaa inta ka dhalatidee anigaada aadan ixtiraamaynin naftaadana aad ixtiraamaynin haddii wax lagu sheegana aada qaadanaynin ani aad waxaa ku wada dhalana iska yaraanayso cid allaale ciddaa rabtadaa ka dhalatid oo anigana ay ixtiraam ii haysid naftaadana ay ixtiraam u haysid qof ila dhasho walaalkaygaa tahay waxa ani adi aa ku kala sanaynayna inta adduunka joognane waa taqwallahi caza wajalla waaye qofba qofka uu ilaahay kaga dhow yahay qofba qofka uu ka xishood badan yahay bulshada horteeda markuu joogo qofkaas aniga agteeda karaamo kale qofkaas aniga agteeda karaamo kale haddii mid dadka ii xigo liileeyahay dad qofkaana dadka kuu xigo intoo life soo fadhiistay dad soo hor fadhiistay ee ummad dhan ee ilaahay sameeyey uu aflagaadeenaayo xigaashaha ani oo xigo waxay ii taray adduunya aakhiro waxay ii tarayso malaha aniga dadka aan ka dhashay waa inay fahmaan Soomaali ahaan markii la dhaho waa inay fahmaan inaan anaga waxna ku kala sareynin qabiilna ku kala sareynin hadda ani aad wada dhalanoo baraha bulshada ku wada jirnane sharaf dhaca waxaa maanta igu filan qofkaas caruusha isxiga meeshuu jooga meeshuu qabiil ka sheega ka qaylqayliya ka booqbooqlaya sharaf dhac igu filan war qabiil waa ka dhalatay ilaaha kaa dhaliyey ilaahayga kaa dhaliyey dadaa kaga saraysa ilaahay kuma dhihin qof hebelaa kaa liitani ilaahay kuma dhihin intaa fahan kuna dhaqan fikirkan fiiri xaqa waa xaraar waaye mar walba waa ku celcelinaa haddana waa ku celcelinaa qof kastoo aniga hadda kadib inuu qabiil igu dhiila rabo codkayga hala duuba iska joogo meeshiisa iska joogo qofnimadeeda waxaa ku kasbo waaya wallahi yaana qabiil ku kasbanaynin iyo billahi yaana qabiil ku kasbanaynin iyo tala yaana qabiil ku kasbanaynin gabadha walaashay ah ee og inaan caruushahay ee og qabiilka ka dhashay ee og ina adeertay tahay haddii aniga caruushnimadeeda igu imaadane wixii ay igu bixisay iyo waqtigeeda iyo xoolaheeda xoogeeda ilaahay laakiin midaan ku sheegaa haddii inta ogaa weysay wax ka duwan igu bixisane aniga uma yeeranana iskeeda aniga weli inaan kusii weydiiyey fiiri weli inaan waxaan kusii weydiiyey xaq uma lihi laakiin waraa dardaraaye dadkan waxay iisoo qorayaane hal midaan ku sheegaa mida iisoo qorayaan colow gaajo hawiiw caayaa nin ummad iyo qowmiyad caaya see ugu ciyaarto su-aasha lagu weydiinaya waxa weeye nin qowmiyad caynaya qofka markuu daarood yahay nin wanaagsan hadduu yahay oo dad caynaynin xataa dhib ma leh waa loo ciyaari karaa laakiin qof caytama oo qowmiyad dhan caynaayo oo wuxuu rabo sheegaayo oo weliba ninka hawiye hadduu ka badiyo gifti dartiis u caynaayo giftigaas adaa soo diray hawiyana lagu caayo adiga marka nin caytamaayo haddaadan qabiil xataa waxba uuna kaa gelin nin caytamaayo diinta ma qabtaa in wax la siiyo nin caytamayo diinta islaamka ma qabtaa in wax la siiyo haniye ani adinaa doodeena u qabtaa hadalka ka bax colow waa wiil Soomaaliyeed waana waa wiil muslim ah waana wiil dhalinyaro ila oo asaageyga ah inta aan gali karana gali karo inta aan gartana gartay haddii colow uu qabiil caayo ama uu qabiil ku dheelo ummadda ilaahay samaysata dhanna ay ka soo wada horjeysato ama dadka intooda badan ay ka soo wada horjeysato
waxaa qasbiyan nafteeda ku hal mar hani waxaa nafteeda qasbiyan ku dadkeena intooda badanna qasbiyan ku waa walaalkeen nala dhashee wixii xunna inaan ka celino wixii sanna inaan tusno not inaan ka wada cararno anaga dhan waa inaan tusnaa inuu walaalkeen yahay waa inaan tusnaa inaan garabkiisa ka muuqan karno waa inaan tusnaa keena xun iyo keena fiicanays isku si ahayn hani waxaa arkaya qofaa wanaag fara badan ku tuhmaysa oo qof wanaagsan oo wax wanaagsan ka hadlo laakiin adi aan ku wanaagsanayna adiga ku xumeenaayo kadalik waxaa arkay qof xun oo inuu qof xun yahay aa u jeedid laakiin ummadda dhan xumaanay ku sheegaysa adiga ku wanaajinayo sometimes qofkan wuu xun yahay in loo xumeeyo oo looga wada fogaado ma aha qofkan ma xumo wax xumaama ka sheego bal adiga be a good example qofkii soo jiid fiiri nabiga wuxuu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh qofka inta uu ku jiro shaadowga laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulullah oo qof muslim yahay qalad kasta uu la yimaado haddii baridda bacda islaam uu la imaanin ilaahay kama quusto mar walba ilaahay wuu rajeeyaa qofkii inuu soo laabto mar walba ilaahay wuu rajeeyaa qofkii inuu fiicnaado mar walba ilaahay wuu rajeeyaa qofkii inuu wixii qalad uu samayn jiro uu ka qoomameeyo qofkan asaga maanta ma garanin macnaha ma jeclaanin inuu xumaado dan iyo duruuf iyo dad wax la xumeeyey waa la wanaajin karaa qofkani okay ani wax ma kaa dhaha marka meesha hal markii soo fiiri kaamirada soo gal waxaa meesha kaa dhahani hadalku oo dheeraada waxaa meesha kaa dhaha soo fiiri ay dhawa kuma qoloya duubistan ka cararaya duubista ani markaa ila hadlaysa duubista ma ka cararaysa markaa ani hadlay maxaa duubista uga cararay ani caadan wada hadalna kaamirada soo gal kaamirada muhiim ah sheekho adiga ku soco magaciisa ma sheegay 5 kuna uga badinaynaa 5 kuna uga badinaynaa muhiim ah ku soco last game ciyaaronay ku socneeyo adi muuqaalkayga muhiim ah codkayga waa ku maqlaan ku arkay ku socday marka adi baxda sheega marka waxa sheegi karo saasi tagay had ii soo gal dhageyso okay ma isa samee marka baxda hadla dib ma lahan markaan baxada taasa ku rombo يا الله يا الله يا الله ارتلك مكان بدي يا الله بلن ثانك يو سو ماتش كاميرا كبح مركا هذا لي كرا كاميرا كبح ابي لستوين هني كلها هذه كاميرا كبح هذا لي كراي كاميرا كبح احبابي والله I've tried all my best حوقي حولو tabar iyo waqti waa isku dayay inta saalixaadka ee qalbigooda wanaagsan ee taqaana diibline way yaqaanin ilaahay azza wa jalla arshiga meel kasta joogana uu ii jeedaa inaan arinka qabiilka ka haro sharafti igu weyneed ee aan gaaray iyo qiimihii igu weynaa aan gaaray ee ilaahay i gaarsiiyana waxa kamid ahaa qofka inta aan lifekiisa daawanayo ama aan la joogo ama aan gameka u ciyaarayo ama aan la ciyaarayo inuu qofna aflagaadeen qabiilna uu aflagaadeen sharaftii ugu weyneeda gaaray intaas waa intaas dadku way caytamaan ma way iscaayaan heesee daarta waxa way sheegaan ma qiimihii ugu weynaa ee gaara waxa waay intaas aan joogno qofkii noo sacaytamin xalay gameka waa joogay waa la wada ciyaaray ani gadaala ka soo galay marka imaadana alxamdulillah aruusha imaadana dhawaana ligu sharfi wixii caadi wixii waa la joojiyay inta ani aan joogno wixii aan ciyaari kar waa ciyaaray waa sharaftii ugu yareeda gaaray laakiin haddii ilaahay ila garab galo oo walaalo fara badan oo ila garab galaan aan helane biin illaahi alkariim waa gaari doonaa anagoo waxaan qabyaaladan iyo caayadan iyo waxaan anagoo soo wada afjarno waa gaari doonaa biin illaahi alkariim codka intaas uga baxay hani maadaama aan ku foora hal geem aan kaa badiyaan ma ilaahay dartiis foora ii saarano please foora haddaa kuu saaray geemka le inaad ku darsatid waa midaan kuu sheegaa ما إلهي درتي زاني هل مر فلتر قش إلهي درتي هذا والله فرحسن أنا سوق أرتي واحد جاكا أرتي سوق عشان كذا كودا مسترني وهدارتي صومالة تيك توك جوكت وجفتر كيكو عادي جابه والله وبالله وطلعي waxa ogaan doontaa maanta maalin kamid ah in maanta adoo qabiilaysta ahayn oo reerkaaga ku dhex jiro yaa adoo wiil soomaalinimada u go'ay ayaa ogahay wiil soomaalinimada u go'ay oo Soomaaliya ahay dhahay kadibna wiil hawiya soomaalinimo u go'ay dadkiisa markuu karbaashi jiray ama dadkiisa uu wax dhihi jiray sida saan oo kale noo qabiil
qofkaa rabaa la jiraa markuu dhihi jiray gifti baa loo gedi jiray giftii baa loo gedi jiray markay sheekada dhanaanka istaagtana way ka dhaqaajiyeen in adeerkood markuu la dheelaayana way tumaan saaxiib macaan dad aan weji lahayn hawiyi maanta weji ooba leeyahay dad weji leh ajiro oo wallaahi oo bilaa oo talaa dad weji leh ani qabiil ma naga dhaafto walaalay garka ay lugtaa haystaa ilaahay adigu ku haysta dadkaana u sheegoyaay adaa wax soo arkaayeen niyo ku soco hay hadda waa kaas maxaa isku haynaad wallaahi jaakidan quruxan ku haya hani istaag jaakadan garbasaar u xiran weeg soo gasho ama madow ama